waxaa farxad noo wada ah iyo sharafba nasiib weyn noo ah maanta inaan kulligan markhaati ka nahay dahfurkaan aan ku dahfurayno inay wasaaradda waxbarashada ay dib ula soo noqoto 24 iskuul iyo macallimiin badan iyo arday badan 27 sano kadib burburkii markuu dhacay waana markii ugu horeysay ma haddaas allah iska leh ka sakoon waxaa iska leh wasaaradda waxbarashada uu hogaamiyuu yahay wasiirka dowlaha barre waxaa munaasabadan weheliya oo aan isku nimid inaan dahfurno manaahijkii loogu talagalay in lagu hago waxbarashada qaranka Soomaaliyeed kaasoo lagu guuleystay oo arkaysaan in muddo laga shaqeeyay oo la soo daabacay nus milyan buugaaga in la soo daabacay taasna waxa weeye waa horumar dalka uu gaaray oo aan higsanayno muddadii yarta ahayd ee dawladdaani jirtay muddo badan baa madax waxaana laga gelinayay Soomaali waa la haystaa Soomaali lama haysto Soomaali waa dad xora waa dal xora Soomaaliya waxay diyaar u tahay wadan walba oo caalamka ah inay la jaan qaado oo ay la saaxiibto oo aan naloo tilmaamin wadankan la saaxiibi lahayn iyo wadankan la culoobi lahayn taasna ana ugu horeeya oo leh Soomaaliya waa xor dadkeenu waa xor dalkan rabnaan la saaxiibi karnaa oo dana Soomaaliya ka shaqeynaya wadan walbana waxaan rabnaa inaan macaamil la sameysano dal walba dadkiisa dhista annagana dalkeena waa kan dal kale ma lihin annagaana dhisanayna insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo saas darteed waxaan rabaa qof walba oo Soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba inaan u istaagno inaan dalkeena dib u soo dhisano golaha murtida iyo madadaalada hore loo oran jiray inaan dib u dhisayno oo qayb ka ah ololaha isxilqaan kadibna aan ku xujinayno dhismayaal badan oo magaalada Muqdisho ah iyo guud ahaan dalka meel walbaba geedi socodka siyaasadeed ee loo dan leeyahay oo loo dhan yahay oo ka kooban arrimaha dib u eegista dastuurka federaaleynta iyo doorashooyinka waxay qeexaysaa talaabooyinka laga maarmaanka u ah xaqiijinta qabashada doorashooyin toos ah oo leh halbeega caalamiga ah hadduu Ilaahay yiraahdo oo Ilaahayna gaarsiiyo 2020 waxaa heshiis lagu gaaray ama laga gaaray siyaasadda wada xaajoodyada ee wadaaga khayraadka sida kalluunka batroolka macdanta iyo hanaanka doorashooyinka dalka waxaa la dardargeliyay qaadista canshuuraha taasoo ah jidka kaliya ee aan kaga bixi karno gacan hoorsiga shisheeye uuna shacabka Soomaaliyeed ku heli karo adeega dawladda sanadkii 2017 waxaa dakhliga gudaha ee dalka la gaarsiiyay heer aad u wanaagsan iyadoo ay khasnada dawladda
ku soo xarootay $140 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Sanadkan 2018 waxaa la filayaa in dakhliga uu intaas ka sii kordho hadduu Ilaahay yiraahdo. booqashada rasmiga ah ee madaxweynaha waddanka Eritrea Isaias Afwerki wafdiga uu hogaaminayo ay ku yimaadeen magaalada Muqdisho ayaa muujinaysa horumarka uu sameynayo xiriirka cusub ee mar kale labada dal dhex maray. waxaan soo xirnay albaabkii u dambeeyay ee isfaham la'aanta dalalka gobolka Geeska Afrika. waxaan u gudbaynaa marxalad khilaaf la'aan ah aan aadayno iskaashi iyo wax wada qabsi gobolka Geeska Afrika. waxaa soo noqday sumcaddii iyo sharafkii ay Soomaaliya ku lahayd caalamka dibadda. waxay ku dhisan tahay is-ixtiraam, tixgelin, madax banaanida dal walba uu leeyahay in la ilaaliyo iyo wax wada qabsi iyo iskaashi. waxaad la socotaan in Soomaaliya ay door weyn ka ciyaartay ama door weyn ka qaadatay iskaashiga dhaqaale kan ka qaadaya insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo Geeska Afrika. waxaa guul inoo ah inaynu bilihii la soo dhaafay aynu dadaal ku bixinay ka qayb qaadashada sidii loo dhammaystiri lahaa isfaham darrada ka dhex jirta dalalka gobolka Geeska Afrika. Nairobi, Mogadishu for radio check. How do you read me? 135. hawadeenna maanta gacanteena ku jirtaa waxay tan qayb ka tahay dadaalka ay dowladdan ay waday haddana maanta kulligeen aan markhaati ka nahay. oo aan tusno caalamka Soomaali waxay ahaan jirtay iyo dalkan siduu u dhisnaa si ka wanaagsan inaan u dhisano hadduu Ilaahay yiraahdo. Villa Soomaaliya oo Nicholas Haysom wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay uu sheegtay in uusan Soomaaliya ku dhex shaqayn karin. waxaan uga digayaa wadamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qarannimada iyo midnimada Soomaaliyeed.